waqti hore waxaa jiray daraagan kaasoo soo weerari jiray tuuladan si ay dadka uga badbaadaanna waxa ay sii jireen gabadha ugu quruxda badan tuulada. marka la gaaro waqtiga daraaganka 5 gabdhood ee ugu qurxoon tuuladaas ayaa la soo xuli jiray, isagana wuxuu qaadan jiray midda ugu qurxoon amase midda uu isdhaho alla leh waad ka heshay. mar ayaa waxaa dhacday nin geesi ahaa gabadha uu guursan rabay inuu daraagankii la kaco uu qaato. geesigiina arrinkaasi waa uu ka samir waayey, isagoo raba inuu soo badbaadiyo qoftiisii ayuu godkii daraagan ka aaday, balse waa uu soo daaha oo wuxuu yimaaday waqti jaceylkiisii caloosha la geystay. geesigii oo xanaaqsan waxa uu soo gabagabeeyey noloshii daraaganka isagoona nafta dhaafiyey. filimku haatan wuxuu isku jiraa waqti dheer kadib tuuladu waxay noqotay mid ku suntan nabad iyo barwaaqo. sheekadii masduulaaguna ama daraaganka waa wax dhacay oo keliya hadda oo tuuladani lagama xasuusto. taas beddelkeedna dadka waxayba caado ka dhigtaan waqtiyada arooska in gabadha loo diyaariyo sidii daraaganka lagu diyaari jiray oo kale, kadibna lagu rido doontii alwaaxa ahayd ee lagu ridi jiray gabdhaha waqtigaasi. sidoo kalena loo qaado hees caan ahayd oo lagu talagalay daraaganka, taasoo loogu wici jiray ama lagu sheegi jiray inay gabadhu diyaar tahay. sababta ilaa hadda ay dadkani sidaas u sameynayaan waa inay muujiyaan inay ka adkaadeen daraaganka kana soo gudbeen waqtigii masduulaagu gumaysan jiray. waxaan aragnaa gabar yar oo lagu magacaabo miira, taasoo uu dhalay boqorka iyo igoor oo ah wiil uu awoo u ahaa geesigii masduulaaga nafta dhaafiyey oo haatan arooskoodii la qabanqaabinayo. miirana waqtigii la qurxinayo walaasheeda kaweyn ee niira waxay u sheegtaa inay jeclaa lahayd inay guursado geesigii dhabta ahaa beddelka ay guursan lahayd wiilkiisii oo wato magaciisa. taasina waxay sababtaa labada walaale inay dood dhex mariso taasoo kusoo dhammaata caro. intaas kadib miira waxaa la saaraa doontii caada dhaqameedka ahayd, sidoo kalena waxaa loo diyaariyaa sidii loo diyaarin jiray gabdhihii uu daraaganku qaaday jiray. balse wax walba waa isbedeleen kadib markii daraaganka la qaaday heestiisii. isla markii waxaa soo muuqday daraagankii isagoona halkaasi kala kacay miira. wuxuu keenay jasiirad cidla ah oo go'doonsan isagoo gudyar ku xanibay. miira waa ay garabsatay inay tani tahay dhammaadkeedii, waxaana soo muuqday xayawaan yar waa ay ka cabsatay iyadoo dhagax soo qaadatay si ay u disho. codnin ayaa ku dhahay naamiira dhagaxa dhig. miira xilligaasi waxaa gashay rajo, waxa ayna weydiisay magaciisa. wiilku waa armaan wuxuuna u sheegaa inuu yahay isagana maxbuus u xiran daraaganka, wuxuuna intaasi ku daraa ka baxsashada halkani inay tahay mid aanan marnaba dhici doonin, ma ahan wax sahlan ayuu ku dhahaa. waxayna weydiisaa sababta daraaganku usoo afduubtay iyada, wuxuuna u sheegaa inuu kasoo raacay heesta loo qaadayay taasoo loogu wici jiray daraaganka si uu dumarka u qaato. miirana waxay usoo jeedaysaa armaan inuu ka caawiyo ka baxsashada meeshan, balse waa uu ka diidaa isagoo u sheega inay tahay, wuxuuna ku dhahaa inan yahay ka joog. balse miira hadalkiisa waxba kama soo qaado, waxa ayna bilowdaa timaheedii dhadheera inay isku xirto oo ay soo jarto si ay halkaasi ooga baxsato. balse waxaa soo dul istaago daraagankii oo xanaaqsan isagoona cabsi gelinayo. miira waxa ay ku dhawaaqdaa magaca armaan, balse cidna uma jawaabto. waxayna isu sheegtaa amaba isagu sheekeedaa inuusan nooleen oo lagu kala baxay. intaas kadib tinteedii ayay meesha soo suurtaa, waxayna isku daydaa inay ka baxsato balse uma suurto gasho. niyijab awgeedna waxa ay burburisaa derbigii uu kala hadli jiray armaan, waxa ayna weysaa wax la yiraahdo armaan. intaas kadib waxa ay bilowdaa inay raadiso, balse nasiib daro waxaa soo muuqda daraagankii wuxuuna kusii daayaa dab. miira xilligaas waxay xaqiisataa inuusan daraaganka u socon inuu waxyeeleeyo, waxayna soo aadaa dhinaca buurta taasoo hoosteeda ay ahaayeen biyo si ay isaga tuurto. nasiibana waxaa soo muuqda armaan isagoo isku dayay inuu celiyo. ayana waxay aragtaa inuu la socdo bahalkii yaraa, waxayna u qaadataa inuu isagu u shaqeeyo daraaganka, taasoo sababta inay buurta iska soo tuurto gabadha yar. balse waxaa dhaco arrin cajiiba, armaan ayaa iska soo daba tuuro. markay ku dhow yihiin inay dhulka ku dhacaan waxa uu isku bedelaa daraagankii. haatana waxaan ogaanaa inuu isla daraaganka isaga ahaa. si uu u badbaadiyay gabadhan dhaawac ayaa soo gaaro, balse nasiibana ugu dambeyn waa uu soo badbaadiyaa. miirana waxay hareeraha ka raadaysaa doontii igoor iyadoo xilligaasina sawirinaysa inuu soo badbaadin doono ama meelahan uu ku sugayo, balse waxa waa ay weyn. intaas kadib hadda waxay aragtaa armaan oo qof caadi ah, balse dhaawac aad u daran oo soo gaaray kadib markuu isku dayo inuu soo badbaadiyo. waxa ay soo qaadataa dhagax iyadoo ku fikiraysa inay nafta dhaafiso. waxay garowsataa abaalka uu u galay, waxayna soo saartaa fiinta sare ee buurta, balse hal mar ayaa armaan jirkiisu iftiimaa isagoo isku bedel raba daraagankiisa. sidiisii ayuu ku noqdaa. miirna waxay dareentaa inuusan harmaan halis ku ahayn iyada. dhinaca badda ayayna soo aadaa, waxa ayna meesha ka heshaa doon qadiimi ah, balse markay baxas dhahdo waxa ay aragtaa badda oo aad u kacsan, hirarkuna ay isdaba cararayaan. intaas kadibna waxay dib uga soo noqotaa armaan iyadoo bilowda inay dhaawiciisii dhaydo. miira oo daalan habeenkaasi armaan agtiisa ay iska hurdaa. subaxiina markay soo kacdo waxay aragtaa dab agteeda ka shidan iyo sidoo kale in loo diyaariyey miro aad u macaan. ayna markay banaanka soo aado armaan ayay ku aragtaa, waxayna ka codsataa inuu dib ugu celiyo halkii ay ka timid, balse wuxuu u sheegaa inuusan awoodin taas. wuxuuna intaas ugu daraa sheeko yar taasoo ku saabsan armaan yaraantiisii. armaan yaraantiisii wuxuu ku jiray nolol degan, wuxuuna had iyo jeer jeclaa
inuu noqdo sida aabihiisa kaasoo ahaa Dragon. maalmaha kamida waxaa soo gaartay doon ay saarnaayeen koox, isagana wuxuu rabay inuu la saaxiibo maadaama bini'aadanka uu jeclaa, balse waxay u socdeen dilka aabihiisa waa ayna soo gabagabeeyaan noloshiisa. laga soo bilaabo maalintaas Armaan wuxuu ku noolaa xasuus aad u murugo badan, wuxuuna ka adkaaday nafsadiisa si aysan u noqon sida aabihiisa oo kale maadaama aabihiisa uu dadka cuni jiray. balse waxaa kontaroolkiisa lumiyey kadib markii tuulada ay u qaadeen heystii Dragonka, taasoo dib uga soo kicisay xanaaqa waxaana soo afduubtay Mira. intaas kadib wuxuu u sheegay inuu soo baraarugay kaliya isagoo meeshani keenay ujeedo gaarna uusan iyada ka lahayn, sababta uusan u celin karinna waxa uu u sheegay inuusan awoodin kontaroolka naftiisa maadaama haddii uu Dragon isku bedelo wax walbaaba ay ka suurtoobaan. si kastaba Armaan wuxuu u sheegay haddii Igor iyo kooxdiisa ay jasiiradda soo gaaraan inuusan u diidi doonin oo uu u fasixi doono. wuxuuna intaas ku daraa Igor waa uu imaan doonaa, waa haddii uu jiro jaceyl dhab ah, haddii uusan jirinna weligiisa ma kusoo heli doono, waayo labada qof oo isjecel midba uu ogaa karaa kan kale meesha uu jiro. wixii intaasi ka dambeeyey Mira waxay ku qanacdaa inay sii joogto jasiiraddan inta uu Igor ooga imaanayo. Armaan wuxuu isku dayaa inuu u sameeyo wax walba ay rabto si iyada u farxad geliyo, wuxuuna goobtiisa u egeysiyaa goob bili-aadan si ay nabad ugu noolaato. sidoo kalena sanduuqyadii hore ee meesha yaala wuxuu oga baaraa qalabyo ay adeegsan karaan bili-aadanka. labadoodu waxay qaataan jawi aad u macaan iyagoona isku soo dhawaada marba mar ka dambeyso. Mira waxay Armaan tusisaa nolosha macaankeeda iyagoo habeen wada qaatay jawi maan dhahanaa jawi romantic ah, taasoo Armaan dareensiiday inuu yahay nin rag ah uusan kaliya ahayn Dragon xun. habeenkii waxay ku soo kacday Mira iyadoo dhimbilo dab ah wejigeeda soo gaareen, markaas waxay weysaa Armaan si u raadinaysana ugu dambeyn waxay aragtaa isagoo Dragon isku bedelay. waa ay tejisaa balse kontaroolka ayaa ka luma waxa uu ku soo qaadaa weerar. nasiib wanaag haatan waxay ka heshaa Armaan oo wejigeeda taabanayo, taasina waxay ahayd riyo xun. markuu Armaan weydiiyey waxa ka qaylisay waxay u sheegtaa inay ku riyootay riyo Dragonka oo waxyeeleynayo iyada, isagana wuxuu ugu jawaabaa inuusan weligiisa u ogolaan doonin bahalka gudihiisa ku jiro inuu iyada wax dhibaato ah u geysto. sidoo kale wuxuu u caddeeyaa siduu iyada u bartay inuu isku bedelay sidii nin hadda dhashay oo kale. iyadana waxaan ogaanaa inay dareemaysa inay xaggiisa wax u jiraan oo ay laaf ku tahay. subaxaasna Mira waxay kusoo labisatay dhar cas oo ahaa kuweedii ugu qorxoona, halka Armaan oo ubaxyo soo gurayo uu dareemayo inuu isbedeli doono. wuxuuna isku dayaa inuu iska qariyo Mira, balse nasiib wanaag waa ay soo heshaa. wuxuuna u sheegaa inuusan sii sugi karin imaanshaha Igor oo u eg qof aanan soo heli doonin. taas beddelkeedna uu go'aansaday inuu dib ugu celiyo jasiiradeedii. iyadana waxay bilowdaa inay tusto aabitay ay samaysay iyagoona hawada sare u diraayo. dhacdaas kadib Armaan wuxuu dareemaa kontaroolka inuu kaluma rabo, wuxuuna Mira u sheegaa inay isla berri isdiyaariso. wuxuuna Mira ku dhahaa isdiyaari, isla berri waa aad baxaysaa. wuxuuna u sheegaa sida uu Dragonka samayn jiray marka uu caruur dhalaya, taasoo ahayd inuu dab iska keeno kaasoo gubi jiray haween kala soo afduubtay iyo Dragonkaba. halkaasina waxaa ka dhalin jiray canug yar oo isaga bedeli doono. intaas kadib wuxuu isku bedelaa masduulaa. Mira oo indhaheeda murug ku muuqdaan ayaana soo baxdo. dhinaca kale Igor iyo kooxdiisa markii ay raadinta ku daaleen, Igor wuxuu kabtanka markabka Andrew u sheegaa inay dib u celiyo, sidoo kalena uu u maleynayo inay Mira xilligan dhimatay aysan nooleen. balse Andrew oo wacad ugu maray boqorka inuu difaaci doono sharaftiisa ayaa diiday inuu dib u laabtaan. Igor isagoo xanaaqsan ayuu qoorta midi oga qabtaa kabtanka, balse nasiib wanaag waxay arkaan baaruud loo shiday kor, waana Mira oo haatan timid. ugu dambeynna dib ayaa magaaladoodii ugu soo noqdaan. intaas kadib Mira waxaa loo diyaarayaa mar labaad arooskeeda. dhinaca kalena Armaan haatan wuxuu nool yahay murugo, balse halka mid uu ku faraxsan yahay ayaa ah in Mira ay heshay sidii ay rabtay. Mira aabaheeda boqor Duuge ayaa la taliyay gabadhiisa isagoo u sheegay inaysan ku qasbanin inay guursato Igor haddii aysan rabin. wuxuu u sheegay inay qalbigeeda raacdo. markii Mira la saaray doontii caadada ahayd waxa ay bilowdaa dadka horteeda inay ka cadaysay inaysan jeclayn Igor maadaama uusan dhab ka ahayn dareenka uu u qaba iyada. taasina ay caddeen u tahay maadaama uu soo heli waayay meel kasta oo ay joogto. taas beddelkeedana waxa ay caddaysaa in ay dhab ahaantii jeceshaha masduulaagii Armaan ahaa, waxayna bilowdaa inay ku dhawaaqdo heystii Dragonka balse cidna uma timaato oo waa ay weysaa Dragonka. dhinaca kale Armaan oo nolosha ku quusta buurtii ayuu iska soo tuuro si uu u dhinto, balse nasiib wanaag waxa uu maqlaa heystii waxauna usoo ordaa dhinaca heysta isagoo isla markiiba meesha ka wato qoftiisii. balse Igor oo caraysan ayaa isku dayay inuu waran ku toogto Armaan. nasiib wanaag waxaa ka hortagayo kabtan Andre isagoo ka dafayo warankii. halkaas ayayna dib ugu mudoobaan Armaan iyo Mira, balse Armaan ayaa bilaabay inuu isku dayo inuu isqarxiyo si uu halkaas ooga dhasho Dragon cusub. Mirana waxay bilowdaa inay dhunkato iyadoona dejinaysa, waxayna u caddaysaa dhab ahaantii inay jeceshahay. Armaanna markuu arrinkaasi maqlo isagoo Dragon ah ayuu isdejiyaa, wuxuuna muujiyaa sidoo kale inuu isagana jecel yahay. waqti kadib lamaanaha waxaa u curatay gabadhooda yar. Armaanna wuxuu uga sheekeeyaa qisada isaga iyo hooyadiis soo dhex martay. waqti dheer kadib lamaanaha waxaa u curatay
gabadhooda yar Armaanna wuxuu uga sheekeeyaa qisada isaga iyo hooyadeeda. inta kadib Armaan bahalkii yara ayuu ku dhahaa gabadha sii ilaali. isaga iyo Miirna waa is soo raacaan si ay hawada sare waqti ugu soo qaataan. ila wadaag haddaba fikradaada dhiiba qaybta commentiga, like iyo subscribe-na haddii aysan dhib kugu ahayn waad noo saari kartaa. haddii aad saartana qalbiga ayaan kaa leeyahay in badan oo badan. mahadsanid, nabadgelyo. halkaas ayuuna filimkii ku dhammaadaa. noolaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته